Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada sheekadii guushii Jack Ma oo ah mulkiilaha shirkadda Alibaba.com. Jack Ma waa muwaadin u dhashay dalka China kaasi oo ku guuldareystay inuu ku biiro college-ka tiraba 3 jeer. Ugu dambeyntiina wuxuu si dirqiya ku dhaafay imtixaankii kadib markii uu sameeyay diyaarin iyo dadaal caadiga dhaafsan. Waxa kale oo uu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxiyaha cuntada lagu kariyo. Laakiin badankoodii way diideen inay shaqada geliyaan. Kadib markii uu codsiyo kala duwan u dirsaday ee la diiday, ayaa wuxuu go'aansaday inuu shaqo macalinimo raadsado sababtoo ah uu ku guuldareystay inuu shaqo dhaanta helo. Jack Ma wuxuu dhigi jiray luqadda Ingiriiska isagoo qaadan jiray lacag $10 ka yar bishii. Ka hor intii aanu bilaabin dhigista luqadda, Jack Ma wuxuu aad u jeclaa inuu horumariyo habka uu ugu hadlayo luqaddan. Wuxuuna 45 daqiiqo u kaxaysan jiray baaskiilkiisa maalin walba hotel u dhow oo ay dadka dalxiisayaasha ku soo degaan si uu ula hadlo luqadda Ingiriiska oo iskaga dhiso. Jack Ma kuma qanacsanayn shaqadiisa, wuxuuna go'aansaday inuu u guuro dalka Mareykanka si uu u helo nolol ka fiican tii uu ku noolaa. Wuxuu bartay culuumta kombiyuutarka iyo internetka oo aad u jeclaa. Markii dambena wuxuu aasaasay website-ka loo yaqaano Alibaba.com kaasi oo u saamaxay ganacsiyada iyo shirkadaha goob ay ku kala ganacsadaan oo isku dhaafsadaan si online ah. Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalka China, hantidiisana maanta waxaa lagu qiyaasaa $21 bilyan. Waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 25 ganacsade ee ugu awoodda badan qaaradda Asia. Sheekada aynu ka baranay Jack Ma History number 1 waa suurtagal. Waxaa suurtagal ah inaad ka bilowdo ganacsigaaga meel aad u hooseysa oo aad noqoto bilyaneer. Jack Ma wuxuu tusaale fiican u yahay dadka ka soo bilaabay meel hoose zero iskuna daray liiska ugu sarreeya ee taajiriinta adduunka. 2. Horaa loo samayn karaa. Sharci ma aha balse horaad ugu guuleysan kartaa. Jack Ma wuxuu gaadhay guul isagoo ku jira da'diisa 30-meeyada. 3. Markay riyadaada iyo hamigaagu weyn yahay, waxyaabaha hoose kuma dhibi doonaan. Jack Ma wuxuu ku noolaa nolol aad u adag, muu hayn qof ku nool nolol raaxo leh. Ma uusan lahayn gaari iyo baan ay lacag u taalo toona, balse wuxuu u caddeeyay adduunka inay haynta iyo dhaqaaluhu aanay caqabad ku noqon doonin haddii riyadaada iyo hadafyadaada waaweyn yihiin.